ilaa xilligii la magacaabay waxaan bilaabnay inaan bishiiba 2 jeer soo kormeerno howlaha ka socda dekedda oo aan soo aragno maraakiibta soo degaysa oo saa ogtihiin qaarna keena shidaal raashin iyo bagaaj iyo waxyaalo kaloo fara badan kuwa kalena waxay ka qaadaan waddanka xoolo iyo mataqaanaa iyo saliid iyo alaab kale dibadda loo dhoofiyo marka maanta waxaan soo aragnay in hawsha ay si fiican u socoto saa ogtihiin dekedda muqdisho waa dekedda ugu weyn Soomaaliya sanadka hore waxaa la keenay laga dhoofiyey ilaa 1.5 ilaa 2 milyan oo tan oo kaarga ah ayaa laga dhoofiyey waxay noqotay dekedda ugu fiican ugu tayo wanaagsan qaaradda sub-Saharan Africa kow waxaa ahaa berbera oo Soomaaliya ah laba waxay ahayd muqdisho taa waxay caddeynaysaa in waxqabadkeennii uu aad u fiicnaa waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala inaan noqono dekedda ugu fiican Africa insha Allah tacaala taasoo ay sabab u tahay shaqaalaha ka shaqeeya dekedda oo 4 saac shaqeeya wanaag ay muujiyeen saa ogtihiin waxaa ma dhow la bilaabay feasibility-gii lagu kordhin lahaa dekedda hadda waan joognay dekedda muqdisho waxaan ka wadnaa dhismo oo aan ku fidinayno ku badinayno mataqaana ku xoojinayno in dadka ay mataqaana ganacsatada ah ay helaan meelo ay kaargaha keensadaan iyo si loogu fududeeyo shaqadooda waxaa kaloo la wadaa idan in la sameeyo dekedda cusub ee muqdisho Newport oo idan insha Allah tacaala la wado dhaqaaqeeda iyo sidii mataqaana loo shaqeyn lahaa sidii loo dhisi lahaa taasoo idan noqon doonto deked aad u weyn oo Africa ka ugu weyn insha Allah tacaala aan rajeynayno noqoto haddii la helo